wuxuu ahaa gabyaa caan ah oo hal abuurkiisu ay bulshadu aad u tixgelin jirtay isagoo aan 20ka wali u buuxsamin ayuu ku guuleystay kaalinta koowaad tartanka maanso ee la qaban jiray qarnigii 20aad si fiican ayuu uga dhex muuqday suugaanta Soomaalida gaar ahaan xilligii xornimo doonka oo guubaabin jiray ciidamadii xoogga dalka xilliyadii dagaalada ay kula jireen Itoobiya wuxuu lahaa luuq qurux badan oo asaga u gaar ahayd qofkaasi waa shakhsiga qisadiisa jacayl aan ka sheekeyn doono ee Abwaan Cabdi Iidaan Faarax oo dhashay sanadii 1924 gabay ayuu xabsiga ku mutaystay sanadii 1967 cafis loo fidiyay haddana markii ay xukunka qabsatay 21 Oktoobar 1969 xukuumadii milatariga ee madaxweyne Siyaad Barre mar kale ayaa xabsiga dib loogu celiyay waliba mid adag oo wata ciqaab ka darankii hore waxaana silsilad loogu xiray sariirtiisa isku day ah inuu xabsiga ka baxo ayuu sameeyay laakiin darbigii uu ka boodayay ayuu ka dhaxlay inuu lugta ka jawaab abwaanka inta la soo kabay ayaana dib loogu soo celiyay xabsigii wuxuuna ku helay xabsiga dhexdiisa dhibaatooyin badan isagoo ka soo dhex gabi jiray kana cataabi jiray gudaha xabsiga ilaa markii dambe xuriyadiisa uu dib u helay kadib markay dawladda cafis u fidisay maxaabiis badan oo uu kamid ahaa Cabdi Iidaan Faarax waxa gubayay ee abwaanku xabsiga ugu nagaan waayay waxa ugu horeysay dareen caashaq oo uu qabay gabar iyo inuu arki waayay gabadhaas oo ifka ka calmaday waa Luul Cali Xasan oo ku magac dheereed Luula waxa ay ahayd gabar aad u qurux badan oo cod macaan heer ay kamid ahayd hablihii ugu quruxda badnaa Soomaalida waqtigaas waxaana quruxdeeda lagu daabici jiray boorarka xayeysiinta shirkadaha qaarkood gabadhaasi iyo Abwaan Cabdi Iidaan Faarax waxa ay isbarteen markii iskuuleyda ahayd iyadu sida la sheegana waxa uu siin jiray garabsiin joogto ah mar ay aad ugu baahatay ku hadlinta mikrofoonka sida inay noqoto wariye ama fanaanad waxa uu ku caawiyay abwaanka inay ka mid noqoto raadiyihii qaranka ee codka shacabka ee Muqdisho oo sida la tilmaamo uu ku dhiirigelin jiray shaqadeeda ilaa iyo heer uu mararka qaarkood mushaarkiisa qaar u jiri jiray gabar dhalinyaro ah oo shaqaysata noloshana iskugu toosan tahay nin walba ayaa damciya Luulna waxaaba u sii dheereed qurux iyo jamaal eeba u kumanaystay taasna waxa ay keentay inuu abwaanku ka koow ahaa raggii u hanqal taagayay helida wariyahaasi ku jirtay waayaheedii wacnaa sida la sheegay abwaanku waa u sheegtay jacaylkiisii Luula waxayna ugu jawaab celisay waad iga weyn tahay dooqayga nimadeedayga raali ahow dareenka xubbiga ee uu qabay Abwaan Cabdi Iidaan Faarax Luul ma ahayn mid uu qarsan karay sidaas fududna oo uga hari karay gabadhu nolosheeda iyo horumarkeeda qayb ku lahaa wuxuuna alifay heesta jacayl biri ma goysaa biyana kaama mayraan oo uu ku luuqeeyay boqorkii masraxiyada ee banaxariista jannaha ka waraabiyay Maxamed Axmed Kuluc abwaanka oo sidan hore idinkugu soo sheegay xabsi mutaystay 1967 wuxuu banaanka yimid 1968 haddana xabsiga ayaa dib loogu celiyay 1969 maadaama uu ahaa mu'allif gabyaa wax kasta oo rabo kaga gabi jiray sidoo kale heese iyo ruwaayadana ka sameyn jiray kana tirin jiray waxa ay sababtay in dawladihii isxigxiga ay ka caroon jireen xabsigan oo ay dhigi jireen Abwaan Cabdi Iidaan Faarax dabayaaqadii 1970 ayuu dib xoriyadiisa u helay abwaanka waxyaabaha xanuunka ku hayayna waxa kamid ahayd inaysan muddadaasi sanadkii dhaadhaca ahaa ee uu xirnaa abwaanku aysan ka soo kor wareegin ama maalin aysan soo booqan oo xabsiga aysan ugu imaanin qalanjadii dumarka dunida jooga oo dhan uu ka calmaday kaliya hooyadeed ayaa marmar soo booqan jirtay siday xogta ugu soo gaartay wuxuuna markii uu ka soo baxay xabsiga uu hore ka booqdayba gurigii Luula ay ka deganeed magaalada balse uu soo arko markii gurigii uu galay oo hooyadeed ay soo dhaweysay sida qof aanan dib ku dhicin oo kale ayay wariyay Luul u agmartay abwaanka iyadoo salaanka daba tuur ah ku soo riday kana sii dhaqaaqday maba aha ninkii xabsiga ka soo baxay oo aysan dhawaanahan iyo sanadahanba aysan ka saarin xakuyi ciil badana Cabdi Iidaan Faarax oo qac ka yartay xanuunka hayay iyo xurmo la'aanta loo muujiyay aysan ba islahayn ayaa alifay heestii xurmo daran ee isla boqorkii masraxiyada Maxamed Axmed Kuluc uu qaaday صلدوبك أردكي انت كو حبيب قرب درننا حقويقا مدرنا حقويقا
barnaamijka iyo maqashii iyo madadaali ayadoo dahdihinaysa gabadhii uu jeclaa abwaanku ee luula ayaa loo keenay si ay u saarto raadiyaha heestaasi. markay saartay kadib ayaana loo sheegay qofka ay ku socotay heesta inay ayada tahay la yaab iyo amakaag ayaana ka dhacay. ma warbaa meesha ka jira mar haddii heesta ay kugu socotay adiga aad saartay idaacadda kana dejisay weliba ay tahay hees quusasho iyo nabadgeliyeen ah. abwaan cabdi iidaan faarax allaha u naxariistay heesihiisa jacaylka quseeya badankood wuxuu u dhiibi jiray fanaankii weynaa maxamed axmed kuluc oo ay saaxiibo dhow ahaayeen isna sir ogaayeen labadaba allaha u wada naxariistee. abwaan cabdi iidaan faarax oo ahaa abwaankii soomaaliyeed ee ugu horeeyay ee diyaarad dusheeda ama hawada saraba ka gabiya kadib markii uu soo raacay duulimaadkii ugu horeeyay ee muqdisho iyo hargeysa diyaarad aheyd oo ahayd diyaaradii ugu horeysay ee rakaab ee la siiyey soomaaliya. wuxuu ku geeriyooday hargeysa 1980kii. luulna waxa ay ku nooshahay qurbaha cimrigeeda allaha u dhaafee. waxay idinka codsanayaa daawadayaal inaydan aflagaado iyo habaar midna aadan hawada u marin shakhsiyaadka sheekada idiin soo gudbiyay qaybta ka ah waa xasuus hore oo kaliya waana taariikh waxay ahaataba laga soo gudbay. ma mudna aflagaado cay iyo habaar toona. mahadsanidin.